xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa maanta doortay gudoomiye iyo ku-xigeenno waxaana doorashada gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga, wasiir dowlaha madaxtooyada, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale. xilka gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ayaa waxaa isku soo taagay ilaa 3 musharax iyadoona xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ay isku soo taageen 3 kale oo musharax halka xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad isku soo taagay 1 musharax. musharaxiinta gudoonka baarlamaanka ayaa ugu horeyntii khudbooyin ka horjeediyay xildhibaanada hase yeeshee khudbadaha kadib ayaa xildhibaanada baarlamaanka galmudug waxay gudagaleen oo codeeyaan xilka gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug. xildhibaan Cabdiqaadir Cabdullaahi Bariise wuxuu doorashada gudoomiyaha oo la isku soo laabtay 2 wareeg ayaa ugu dambeyntii natiijada waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha ku-meel gaarka baarlamaanka maamulka galmudug. saaray inaan cadeeyo sida ay doorashadii maanta u dhacday. laga bilaabo hadda gudoomiyaha golaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug waxaa loo doortay oo ku guuleystay codadka inta badan 48 cod Ali Gacal Casir oo ku guuleystay xilka gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay xilka loo doortay. aad ugu mahadcelinayaa si gaar ah xildhibaanadii sida sharafta leh ii doortay oo ay soo saaray. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waana idin la shaqay doonaa insha Allah haddii alla yiraahdo. ballan ah shirkana waa la daadiin doonaa biidnillaahi kariim. وآد يا آد أيام يدكون مع العليا أبكينا آد كأو شرفت بدن آد السيسان وأنا wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug. waxaan rabaa inaan halkan idinku cadeeyo maantay oo si xor ah oo sharciyada ku jirta u dooratay gudoomiyaha baarlamaanka mas'uuliyadiisii waxay ku wareegtay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug. annagu wixii hadda ka dambeeya waxaan la fududeynaynaa shaqada inta ka dhiman oo ah doorashada gudoomiye ku-xigeenada iyo doorashada madaxweynaha oo dhici doonta haddii la yiraahdo 4 Juulaay. aad iyo aad baan idinku intaasi kadib ayaa xildhibaanadu waxay gudagaleen inuu codeeyaan xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo isku soo taageen 3 musharax waxaana xilkaasi ku guuleystay Xareed Cali Xareed. hase yeeshee xildhibaanada ayaa qaab gacantaaga ugu codeeyay xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka oo isku soo taagay 1 musharax kaasi oo lagu magacaabo Maxamed Sheekh Axmed Maxamuud Dawaadan TV caalamiga Universal Cadaado.